Sadiiq waxaad nooga warantaa guud ahaan maxaa tabaabashahaagu yahay, maxaase isleedahay rajada aad ka qabto inaad ku guuleysato state senator oo gobolkan Minnesota. Marka waxaad nooga warantaa guud ahaan qaabka u diyaar garowday iyo waxyaabaha isleedahay maanta waad uga baahan tahay dadka Soomaalida iyagu ku nool gobolkan Minnesota. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaan rabaa Bulsho TV Cali Muuse inaan uga mahad celiyo fursadan qaaliga oo mar labaad stuudiyihiisa noogu yeeray annaga oo message-keena u gudbinayna dadka dadweynaha Soomaaliyeed ee daawanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore waan salaamay doorashadii waxaa ka dhiman waa hal week, maanta waa talaadada soo socota ayay dhici doontaa doorashadii qaaska ahayd ee lagu bedelayay gabadhii Linda Bergland ee shaqada ka tagtay. aniga oo mar labaad ah magacayga Saadiq Warfaa, waxaan walaalaha Soomaaliyeed ee barnaamijka Bulsho TV daawanaya aan ka codsanayaa waxaa weeye talaadada soo socota, talaadada September 13 September 13 2001 walaalayaal inaad soo baxdeen maalintaas oo aad ii codeysaan si aan u noqdo state senator of Minnesota District 61. doorashadii waxaan ugu diyaar garownay doorashadan iyadoo dhaqso ahayd oo gabadhu ay August 10keedii shaqada ka tagtay. August 10keedii bay shaqada ka tagtay. Ramadaan baa lagu jiray, sidaas oo tahay waan u sii diyaar garownay dhalinyaro Ilaahay khayr ha siiye oo gabdho iyo wiilal isugu jira iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee Minnesota degan oo aad noogu faraxsan hawsha aan ku jiro ayaa nala shaqeeyay oo message-keenii intii badneed waan gudbinay. guryo badan baan tagnay oo garaacnay aan u sheegnay waxaan u ordaayo Ilaahay idinkiisna mataqaanaa guul bay ku dambeynaysaa September 13keeda. idinka oo soo bax ayay ku xiran tahay. walaalayaal waa idinka codsanaya waxa weeye dadka politicianka badanaa waxay hilmaamaan in qofka la weydiisto. aniga si sharaf leh oo ku jirta karaamo ayaan idin weydiisanayaa maalinta September 13keeda inaad ii soo baxdaan oo aad ii codeysaan Sadiiq Warfaa oo Ilaahay idinkiisa idinka oo soo baxa oo dadaala si aan u noqdo state senator oo Minnesota 61. waa xaafadaha South Minneapolis. dal badanaa waxay weydiiyeen waxay dhaheen xaafadaha ayaa ka mid ah. waa xaafadaha 61A iyo 61B labadaba. 61A iyo 61B labadaba waa dadka ku jira oo dhan oo daawanaya ayaa ii codeyn kara. dadka hadda mataqaana last year oo kale 61A baan u tartamay kaliya, laakiin sanadkan waa state senate wuu ka weyn yahay areada. marka waxaa ku jirta 61A iyo 61B labadaba. ilaa iyo borderkan wuxuu taxan yahay wadada 51 51st Street wada 51 bay ku xiran tahay. dhinaca mataqaanaa westigana waa Lindale, dhinaca eastigana waa 21st, dhinaca mataqaanaa northkana waxa weeye waa 17th Street. dadka Soomaaliyeed oo agaarkaas ku degan oo aad u degan waa special primary. dad yar ayaa soo baxa, laakiin idinka hadaa maalinta soo baxdaan oo codeysaan arrin taariikhi aan samayn doontiin aniga oo ka shaqeyn doona midnimadiina wanaagiina inaan ubadka Soomaaliyeed oo Mareykanka Minnesota aan wado u furno wadanka wax kala qayb qaadano oo aan habka dawladda meel walba aan ugu jirno ayaan doonayaa. insha Allah taala waa idin ka codsanayaa September 13keeda. waxyaabaha ugu diyaar garoon waxaa ka mid ah maalinta talaadada September 13keeda baabuur baan diyaariyay. aniga xafiiskayga wuxuu ku yaalaa moolka 24ka. moolka 24ka ayuu ku yaalaa. haddii aad walaal rabtid in maaragtay lagu soo qaado transportation rabtid fadlan xafiiskayga numberkiisa soo wac. numberka xafiiska waxa weeye waa 612-871-6885. mar labaadna ku celinayaa 612-871-6885. telefonkana waxaa weeye 612-710-0814. haddii Ilaahay idmo baabuur baan waxaan dhigi doonaa suuqa Carmel, baabuur kalena waxaan dhigi doonaa suuqa moolka 24ka iyo dhalinyaro mataqaana labada suuq joogta oo mataqaana dadka ka qaada oo meesha geeya. lambarka haddaad soo wacdiin aad guri joogtiin aad mataqaana soo wacdid waa lagu imaanaya waa lagu qaadaya. waa arrin historic insha Allah taariikhi ay noqon doontaa.
codkiina ayaa idin weydiisanayaa. Waxaan u istaagay waxa weeye inaan bulshadeeda Soomaaliyeed oo Mareykanka anigu waxaan wada shaqeyn doonaa bulshada degan oo dhan, laakiin annaga qaasatan waxbaa naga maqan aan dareensanahay oo aan rabaa inaan mataqaanaa nimanka aan waxayna ka raadsano oo isteedka xaq aan ku leenahay iyo annagana muwaadinka waxaa saaran waajibaad waa lagu leeyahay, xuquuqna waa ku saaran tahay. Marka wax walba waa diyaar insha Allah tacaala September 13keeda 2001 hala xasuusto waan idin weydiisanayaa codkiina. Marka u diyaar garownay baabuur baa diyaara, dhalinyaro volunteer oo idin qaadaysa diyaara. haddii ilaahayda mataqaanaa hadda flyer dambe ayaan soo samayn doonaa oo ku qoran telefonka numberka. haddii aad rabtid inaad ogaatid meesha aad ka codaynaysid waxaad ka codayn kartaa haddii aad last year codaysay meeshii last year aad ka codaysay haddaad xaafadda bedelatay na soo wac ama waxaa wacdaa City of Minneapolis 311 waa free number oo free charge wey 311 City Minneapolis. waxaa dhahdaa addresskaasaan deganahay halkee ka codaynaya way kuu sheegayaan. haddii ay taas kaaga fududahayna annagana soo wac oo numberka xafiiskayga oo ah 612-871-6885 waana kuu sheegaya meesha ka codaynaysid. haddaadan baawur haysanna waa ku qaaday haddii ilaad maa ku geynaya meesha oo dhalinyaro ayaa ku geyn doonta. Sadiiq, run ahaantii rajo intee la eg ayaad isleedahay doorashadan waad ku guuleysan doontaa haddii eebba idmo, adiga oo niyadaada iyo dareenkaaga kaashanaya maxaa aada isleedahay waad ku guuleysan doontaa haddii eebba idmo doorashadan soo socota? insha allahu tacaala horta anigu nin waxaan isaga dhashay in optimistic ama nin maaragtay mar walba niyadiisu dhisan tahay oo maaragtay mar walba guul rajaynaya. ninka siyaasiguna sidaas macnaha waxa weeye laakiin guusha waxay ku xiran tahay ilaahay insha allahu tacaala iyo dadaal aan sameyn. dadaalka waa la nimid waa annaga oo soo baxna walaalaha Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaya Bulsha TV oo South Minneapolis degan xaafadaha 61A iyo 61B labadaba 61A iyo 61B degan. maalintaas waa doorasho qaas waa special primary waa kala reebkii way 6 baan ku tartamaynaa. qofka soo baxa ayaa mataqaana qofkaas ayaa noqon doona next state macnaha senator. waxaan rabaa barnaamijka maanta inaan marraad ku celiyo anigu waxaan ahay musharax u taagan xisbiga dimuqraadiga ayaan u taaganahay DFL xisbigaas ayaan u taaganahay. special primary ayaa la gelayaa waa doorashadaas special primary-ga oo dhici doonta September 13keeda 2011 waa maalin taariikhiya. idinkoo soo baxa insha allahu tacaala aan rajada aad bay u fiicantay niyaddeeda aad bay u wanaagsan tahay. dadaalna waa muujinay in dadka qaarkood actually ay u dhahaan mataqaana keliga un baa kaambeegarina meelo qaar markaan tegay caddaan xaafadaha waxaa mataqaana marka inaan muujinay barnaamijyo sameynay dadka wacyigeliya oo aan tusnay inaan diyaar u nahay. walaalayaal shaqada aanu diyaar baan u hay aqoonteeda iskool baan uga soo baxay siyaasadda iyo dhaqaalaha community activist aan community u shaqeynaa. waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo midnimada annaga halkan Minnesota inaan ku midowno codkeena ku xisaabtanno qofka codka aan siinayno uu noqdo qof aan la xisaabtanno oo wuxuu noo qabtay. aniga haddaa codkeena isiisiin insha Allah tacaala aan ku guuleysto waa dareemi kartiin mar intaad qof intuu idin imaado I think waxaan aaminsanahay inuu dhammaado waqtigii intuu qof idin yimaado xilliga doorashada keliya oo iyo codeeya aadan dib u arkin. anigu xafiis waxaan ku leeyahay 24ka Carmel waa tagaa masaajidan kuula tukadaa oo macnaha diin isku diin baan nahay Soomaali baan isla nahay isku asal baan nahay isku dad baan nahay isku diin baan nahay. marka waxa weeye meel walba igu arkaysiin oo dhaysi mataqaana waroo ku dooranay maxaad noo qabatay meesha nimanka kala ka xishoonayso. marka anigu wiilkiinii baan nahay ama aabihiin qaar dhali karaa qaar macnaha warka waxa weeye mataqaana haad insha Allah tacaala September 13keeda 2001 dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed oo Mareykanka ah ee ku nool deegaanka 61A iyo 61B waxaan idinka codsanayaa codkiina annaga oo doonayn inaan taariikh sameyn haddii lahayd. Sadiiq, maxaa hal ku dhig aad ka dhiganaysaa dadka Soomaalida aad u ballan qaadaysaa inaad u qaban doonto haddii eebba idmo marka aad ku guuleysato doorashada? waxyaabaha aad isleedahay important way u yihiin bulshada Soomaalida way u baahan yihiin oo focuska aad saaraysid maxaa ka mid ah Sadiq? su-aal aad u wanaagsan weeye walaalayaal. aniga haddii ilaahay idmo haddii la i doorto waxyaabaha ugu waaweyn inaan wax ka qabto doonaya waxa weeye shaqo. deegaanka aan degannahay dhalinyaro aad u fara badan oo isku jirta ummadaha dhan oo shaqalaan ayaa jirta. badanaa xaafadda South Minneapolis waliba xaafadaan deganahay waa xaafad unemploymentigu waa high badanaa state-ka way ka sarreysaa.
anigu waxaan kaga duwanahay dadka ila tartamaya waxa weeye anigu nin waxaan ahay businesska jecel marka waxaan sameynaya haddii ilaahay idmo waan la shaqeyn doonaa xisbiyada kala dhammaan iyo governorka aan doonaya lala shaqeeyo in aan dhaho dadka xaafadda in laga sameeyo wax la yihahdo empowering zone macnaha zone gooni oo mataqaana tax advantage la siiyo kambaniyada oo tax incentive canshuur dhimid lagu sameeyo kambaniyada oo mataqaana la yihahdo xaafadda soddonaa bulshada investigaraysatid oo aad lacag gelisid oo shaqaale abuurtid intaasoo sana ayaa waxaa lagu siinaya canshuur dhimid lagu siinaya si ay mataqaana u imaadaan oo shaqo u abuuraan oo shaqada hoos u dhacdo waa midda koowaad midda labaad waxaan aad ugu dadaalay haddii ilaahay idmo mataqaana caruur Soomaali badan halkaan nagu dhaltaa jirta oo iskuulada public schoolka aada iskuulada Minneapolis waxaa jira wax la yiraahdo lacagta la siiyo mataqaana equity wax la yiraahdo mataqaana ayaan aad ugu dadaali doonaa oo in iskuulada mataqaana ku yaal xaafadaha dadka lacagta leh ama dadka maalka leh in sida iskuulka loo fangareeyo kana loo fangareeyo in small classes in glaasyo la yareeyo hadda macallinkii sometimes waxa galaaska 40 qof aa dhigata Janice Mehelay in after program school program after program caruurta dhan loo sameeyo si caruurta loo mashquuliyo mataqaana waxyaabaha xumaan aysan u aadin waxyaabahaas ayaan program in mar saddexaad arrinta caafimaadka aniga waxaan ahay nin u taagan mataqaana qof kasta oo Minnesota degan inuu helo caafimaad mataqaana affordable oo awoodi karo lacagta isaga bixin karo Minnesota Care in la sii adkeeyo oo dadka mataqaana coverage-ka loo badiyo taas ayaan u taaganahay in waxbarasho fiican caruurta Sambiri waa dhahaa waxaan aaminsanahay waxa weeye inaan waddankeena halkan laabiist uga noqono oo aan dawladdeena Mareykanka aan u sheegno waddanka Soomaaliya inay waddan in lacag la gelin kara tahay oo mataqaana la investigarasto xagga tacliinta xagga waxbarashada xag kasta waxyaabaha ordaa waxaa ka mid ah inaan labada waddan isku xiro kale in anagu halkan Minnesota strong community ummad adag oo isku xiran ah inaan mataqaana waddankeena aan wax u qaban haddii ilaahay idmo waxaan kaloo walaalaha Soomaaliya dhamaan ka codsanaa waxa weeye aniga haddaan ahay Sadiiq Warfaa horta inaan halkan ka sheegaan rabaa mar dhowr jeer waa ka heli community-gayga oo Minnesota degan oo Soomaalida Mareykanka dadaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo proud ah weey waxyaabo badan baa midnimada ka shaqeynaa abaarihiis aan uga shaqeynay arrin waxyaabo lagu farxi karo weey waa inaan hadda hore u sii soconnaa hadda doorashadeedii ayaa taagan September 13keeda rajadeeda aad bay u wanaagsan tahay walaalayaal yaan la hilmaamin maalintaas September 13keeda gaar baa waxa uu tiri habeenkii Keith Ellison la dooranayay waa seexan weey mataqaana marka Keith Ellison waa nin muslim waa jecelnahay mataqaana oo wala doortadan oo US Congressman marka waxaan gabadhii ku yiri aniga oo luqadna kula wadaaga oo Soomaali American oo mataqaana masharax u taagan ha iga seexan baa marka waa ha iga seexanina aan sameeyno sida arintii waagi historic u dooranay ninkii the first Muslim American US Congress u dirno Minnesota ka doorano annagoo shacabkan Soomaalida ana arin weyn ka qayb qaadanay ina idinkana sidaas oo kale aad ku dadaashiin inaad ii dooratiin the first Somali American oo state senator haddii ilaahay idmo codkiina maalintaas habeenkaas qof walba qofka arta u sheeg walaalkaas hadii qorfa waa ordaya maxaad u qabatay taageer September 13keeda 2001 September waa Tuesday last week waa doorasho special ah dadka degan South Minneapolis 61A iyo 61B codkiina ayaan weydiisanayaa si khayr baan idinkaga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamay dhammaantiin September 13keeda hala coday walaalayaal uma santahay salaamu calaykum ala ma santahay hala coday September 13keeda 2001